dhammaan kasoo qaybgalayaasha aad ugu mahadsantiin kasoo qaybgalkiina insha allah waxaan rajeynaa cawada programkeena oo ku saabsan deep vein thrombosis oo multidisciplinary ah oo looga hadli doono qaabab kala duwan in wax badan laga faa'iidi doono. ururka dhakhaatiirta lafaha Soomaaliyeed mar walba wuxuu u taagan yahay in kor loo qaado aqoonta xirfadlayaasha Soomaaliyeed dhexdoodana iyo dhakhaatiirta kalena ay la wadaagaan wixii aqoon iyo update soo kordha. programkeena cawada wuxuu ku saabsan yahay sidaan horey u sheegay deep vein thrombosis. programka waxaa ka qayb galaya oo soo jeedi doona presentations dhakhaatiir kala duwan. ugu horey doona insha allah Dr. Isxaaq Afgaab, waxaan ugu xigi doono Dr. Ismaaciil, Dr. Cawaale Cabdullaahi, waxaa ku xigi doona insha allah Dr. Sayid Cumar, ugu dambeynna waxaa noo soo gabagabeyn doono Dr. Samuna. waxaa barnaamijka doono anigoo ah Dr. Xasan Salaad Fiidow. dhammaantiina soo dhawaada. waxaan codsanaa inta uu presentation ka socdo in dhammaan kasoo qaybgalayaasha ay wixii su'aalo iyo fikrado ay qabaan ay note gareystaan. programka dhammaadkiisa ayaan wadaagaynaa dhammaan. Dr. Isxaaq Afgaab, the stage is all yours. Okay. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin soo dhawaada akhaaray. waxaan rabaa inaan xogaa yar oo iska brief ah inaan ka iraahdo waxaa la yidhaahdo deep vein thrombosis. magacay waa Dr. Isxaaq Afgaab. marka waxyaabaha aan okay waxyaabahaas aan fiirin doono insha Allah taala qaybaha ama outline ka aan ka hadli doono presentation qaybtaas waaye slide-ka ujeedaan haddaan kasoo gudbo DVT ama deep vein thrombosis definition ahaan waxaa wada garanaysaan. waxaan la hadlay dhakhaatiir waaye. waa blood clot that forms in the veins oo ku samaysmaa inta badan lugaha ayuu u badan yahay, laakiin sidoo kaleeto waxaa la yidhahdaa meelo kale oo ku samaysma karaa sida gacmaha kaleeto ama xataa maskaxda uu aadi karaa. sida caadiga waxaa jira waxa la yidhaahdo venous thromboembolism ayaa jiro. marka DVT-ga iyo pulmonary embolism ayay ka kooban tahay sida caadiga. dadka markastoo da'dooda badato ayuu ku dhacaa. dadka yararka markii ay ku dhacdaan inta badan dumarka ayaa u badan. maxaa la yidhaahdaa two-third ama maxaa la yidhahdaa two-third of the venous thromboembolism cases waxay noqonayaan isolated. waxaa la yidhahdaa isolated deep vein thrombosis. and sideetan bukaanadaas waxaa waaye waa proximal DVT ayay noqonayaan. marka DVT sida caadiga isbitaalaad markaa joogtaan kolley waa aragteen. waxaa leedahay significant maxaa la yidhahdaa morbidity and mortality in both inpatient and outpatient. riskiga oo maxaa la yidhahdaa recurrent thrombosis iyo embolizationkan wuxuu badan yahay maalmaha hore ee xanuunku markii uu jiro ayuu aad u badan yahay. figurkan wuxuu muujinayaa maxaa la yidhahdaa sida oo markii qofka da'diisu ay badataba oo khatarta maxaa la yidhahdaa deep vein thrombosiska uu sii kordhayo ayay muujinaysaa. wadamo badan baa studigan laga sameeyey. marka inta badan waxay isku raacsan yihiin qofka markuu da'diisu sii badato inuu maaragtay oo riskiga ama khatarta oo maxaa la yidhahdaa deep vein thrombosiska inuu sii kordhayo. هذا كان marka wuxuu sheegaya xogaa waxaan rabnaa marka waxyaabo definition ama terms inaan isla fahanno aan u baahanahay ayaa jiro. marka DVT laga hadlaayo erayadan ayaad inta badan maqashaan oo waxa la yiraahdo provoked DVT iyo unprovoked DVT. waxaan kaloo maqalnaa waxa la yiraahdo proximal DVT iyo distal DVT. marka provoked DVT waa muhiim waaye markii gaar ahaan xataa management markii laga hadlaayo. marka provoked DVT waxaa la yiraahdaa waa DVT-ga oo leh wax sabab leh, macnaha risk factor la yaqaan ayaa jiro. something that has precipitated the DVT ayaa jiro bukaanka. marka history ka qaadi bukaanka iyada bukaanka ama qaliin buu mar dhow loo sameeyey ama isbitaal baa mar dhow la siixiyey ama daawooyinkan maxaa la yiraahdaa ishaag oo loo isticmaalo family bills loo isticmaalo ayuu qofka qaadanaya. adiga you will get something oo aad u aaneyn kartid qofkaasna DVT-ga ayaa helaysaa. taas marka waxaan yiraahdaa provoked DVT. waxaa jira mid la yiraahdo unprovoked DVT waa cagsigeeda.
wax riski ah oo la heli karo ma jirto riski factor dhan oo yaala ma jirto marka iyada waxaa la yidhahdaa unprovoked DVT oo riski la yaqaana ma jiro macnaha proximal DVT waxaa la yidhahdaa waa DVT marka ku dhacdo maxaa la yidhahdaa poplitealka iyo femoral ama iliac veinuska meelahaas marka dhacdo waxaa la yidhahdaa DVT distalkana waxaa la yidhahdaa midda ka hooseyso oo inta badan DVT ku dhacda below the knee ku dhacdo oo maxaa la yidhahdaa inta badanna ku kooban maxaa la yidhahdaa cuff veinuska ku kooban ayaa waxaa la yidhahdaa distal DVT marka hadhow managementiga iyo yaa la daaweynayn waxaa jira waxyaabo la fiirinaya ayaa jira marka laga hadlaayo risky factors for DVT islaamka si fiican ma loogu jeedaa hello دكتور si fiican ayaa loogu jeedaa okay very good marka risk marka laga hadlaayo pathogenesis of deep vein thrombosis ama pulmonary embolism ama waxaa la yidhaahdo venous thromboembolism guud ahaan laisku yidhahdo marka laga hadlaayo inta badan waxaa caan ah oo la arkaa oo laga hadlaa waxaan la yidhaahdo tradekan la yidhaahdo virtuous trade la yidhaahdo ayaa base u ah iyada there is stasis of blood ama waxaa jira ama endothelial injury ama waxaa jira waxa la yidhahdaa hypercoagulability state marka xaaladaha saddexda virtuous trade la yidhahdaa ayuusan ka dhex baxayn marka historigiisa markaa qaadid marka waa risk factorska ayaan fiirin doonaa insha Allah tacaala marka risk factors for DVT waa inta badan waxaa loo kala qaybin karaa kuna waa inherited oo waxa genetics la xiriira waaye kuna waa kuwa acquired bukaanada marka oo DVT ku dhacdo up to 80% waxay leeyihiin at least waxaa arkaysaa one maxaa la yidhahdaa risk factor ayaa arkaysaa qaarkoodna waxaa waaye waxay leeyihiin multiple maxaa la risk factors ayay qaarkoodna leeyihiin waxyaabaha marka risk factorska oo acquirerka waxyaabahan ka jiro bukaanka qaliinaa loo sameeyey mar dhow especially orthopedic surgery orthopedic teamka inay noo organize kareen ku mahadsan yihiin marka surgery bukaanka loo sameeyey ama bukaanka trauma ku dhacday ama bukaan loo waayo مثلا immobilization oo iska bukaan dhaqaaqayn basically dadka مثلا aad ku xanuunsan dadka waayeelka maxaa la yidhahdaa dadka wadnaha ka jiran yani someone oo aan wax dhaqaaq samaynin maxaa la yidhahdaa prior thromboembolism qofka hadduu history hore leeyahay malignancy pregnancy antiphospholipid syndrome chronic medical conditions sida مثلا heart failure oo kaleeto iyo atherogenic drugs daawooyinkan maxaa la yidhahdaa loo isticmaalo family bills kala isticmaalo ayay naftooda waxaa risk factors ka kamid yihiin oo maxaa la yidhahdaa family planning loo isticmaalo waxyaabaha marka waa kuwan dhinaca kale ku qoran dhinaca dhexda ku qoran waxyaabaha inherited ka waa مثلا factor 5 Leiden mutation iyo prothrombin gene mutation labadaas waa the most common maxaa la yidhahdaa waxyaabaha keeno deep vein thrombosis ama maxaa la yidhahdaa venous thromboembolism waxyaabaha keeno oo inherited ka ugu caansan waayo deficiency of protein C iyo protein S iyo antithrombin deficiency dysfibrinogemia factor maxaa la yidhahdaa 12 deficiency all these things iyo hataa mararka qaar dadka oo blood groupkooda uu oodayahay waxyaabahaas oo dhan waxay ka mid yihiin waxyaabaha risk factorska oo DVT-ga ayay ka mid yihiin marka risk factorga waa very important marka bukaan maxaa la yidhahdaa DVT aad diagnose garaynaysa okay how do we diagnose marka saan u diagnose garaynaynaa deep vein thrombosis number one waxaa ah clinical presentationka ayaa number one ah halkaasay ka bilaabanaysaa waxay ka bilaabanaysaa history and physical examination marka historyga waxaa la rabaa inaad bukaanka weydiiso dabcan waxyaabahan inta badan la imaado bukaanka leg swelling pain worm waxyaabahaas oo la imaanayaan inta historyga aad qaadaysidna waxaad arkaysaa risk factorskii adaan kasoo hadlaynay ayaa la rabaa bukaanka markaa warsanaysa inaad weydiiso qaliin maa marna lagu sameeyey dhaqaaqaaga maa yaraa daawoyin maxaa la yidhahdaa contraceptive pills maa qaadataa yani you have to look for maxaa la yidhahdaa risk factorskii hadda aan kasoo hadlaynin in your history physical examinationka bukaanka waxaa loo samaynayaa examination fiican loo sameeya lugta waa la fiirinayaa haddii مثلا maxaa la yidhahdaa lugta xidida oo soo muuqda haddii lugta ay bararsan tahay in la cabiro maxaa la yidhahdaa lugta in la cabiro maxaa la yidhahdaa differences loo fiiriyo unilateral edema waxaas in la fiiriyo abdominka in la fiiriyo pelvis because one of the things oo risk factors waxaa kamid ah malignancy marka inaad fiirisid mass ma ku yaalo qofka abdominkiisa pelvic mass ma jiro all these things inaad fiirisaa loo baahan yahay waxyaabaha la arkay dilated superficial venous unilateral edema ama swelling oo markii la cabiro difference in cuff ama thigh oo significant yahay macna marka la cabirto
يعني ardada oo markaa studentska starka marka qaar waxaan weydiiyaa ma wadataan waxa la yiraahdaa measuring tape ma wadataan aan ku dhaca baalkan oo nimanka arqaanlayaasha bis ay isticmaalaan marka baalkaas oo kaleeto ama measuring tape ay isticmaalaya ama something else oo adiga ku cabiri karo lugta ayaa cabiraysaa lugta kale fiican waa cabiraysaa kabacdi waa kala jaraysaa marka difference ku soo baxayo hadduu 2 yahay meelahaas iyo 3 inta badan waa significant oo wuxuu macnuhu sameynaya marka waxaa jira wax la yiraahdo calaamad la yiraahdo homonis sign la yiraahdo jirto oo ah qofka markii maanta lug foodka dorsiflexion markii la sameeyo ayuu wuxuu dareemayaa xanuun hadda wax macno weyn oo ay leedahay ma laha macnaha reliable sign ma ahan mararka qaarna waxaa la yiraahdaa waxaa laga yaabaa qofka inay DVT-ga ay kusii fogeyso oo dislodging inta samaysa ay baxsataa laga yaabaa marka we don't encourage inuu homonis sign hadda sameeyo because macno weyn gaar u samayso okay waxa way marka bukaankii history ka qaaday physical examination aad u samaysay adoo marka ka duulayo history-gii aad qaaday iyo physical examination-kii aad samaysay ayaa waxaad shaki waxaa kaa galaya DVT suspected DVT ayaad ka shakinaysaa markaa shakisid marka shakigaasi DVT-ga aad ka shakisay ayaa waxaa loo sameynaya wax la yiraahdo risk stratification oo macnaheedu uu yahay how likely ayuu bukaankan DVT qabi karaa waxaaba la isticmaala ayaa jira marka sida loo sameynaya marka risk stratification-ka waxaa la yiraahdaa DVT pretest probability waxa la yiraahdaa inaad calculate garaysaa loo baahan yahay waxaa kale loo baahan yahay D-dimer testing ayaa ku xigsanaya markaas waxaa ku xigsanaya markaas oo go'aan ka soo baxay meesha ee compression ultrasound iyo D-dimer-ka inaad usoo gudubtid maxaa la yiraahdaa ultrasound marka saddexdaas approach oo isku xigta ayaa inta badan la sameeyaa very good haddaan hore usii socono marka waxaa wada taqaanaan waxa la yiraahdo Wells score oo DVT ayaa jira oo garanaysaan dhammaantiin scoreka marka wuxuu ka kooban yahay all these things oo meesha idinkaga muuqda bukaanka active cancer hadduu qabo paralysis ama paresis ama recent plastic immobilization of the lower extremities yani all these things oo meesha ku qoran ayaad bukaanka maaragtay ka raadinaysaa kii aad heshaa marka oo positive wuxuu noqonayaa hal xab uu helayaa hal xab ayuu helayaa waxaa markis goosanayo bukaanka haddii alternative diagnosis is likely or more likely than the wax kale oo diagnosis haddii aragtid oo kugu soo dhacaya oo aad is leedahay kan ayay u badan tahay maalan waxaa ka shakisa bukaankan inuu waxaa DVT maahan waxay u egtahay marka ani aan fiiriyo cellulitis u egtahay astiri maalan yani markaasoo kaleeto waxaa ka go'ayso total score-kaaga laba ka go'ayso minus noqonaysa marka based on maxaa la yiraahdaa Wells score-kaaga adoo isticmaalayo ayaa waxaad bukaanka gaaraysaa conclusion-ka oo ah high probability inuu yahay bukaanka for DVT moderate probability inuu yahay iyo low probability inuu yahay saddex iyo wixii ka badan of course waa high hal iyo labo waa moderate zero wixii ka yar zero iyo wixii ka yar zero wax kale ma garanayo waxa waaye waxay noqonayaan ayagani waxa waaye waa low probability ay noqonayaan okay ana waxa ma jiraan waa negative waa low probability waxa waaye all these things are negative good waxaa jira marka wax la yiraahdo modified Wells score modified Wells score wax kale maaha waxaa lagu soo daray kaliya addition waxaa loogu soo daray bukaanka haddii uu leeyahay previously documented deep vein thrombosis haddii uu bukaanku leeyahay ayaa soo galayso oo wanka dhigayso marka modified Wells score marka ayada waxay sameynaysaa kii hadda probability kii hadda oo aan dhahnay high iyo low iyo intermediate aan dhahayn maaha ayada waxay laba shay ku soo koobaysaa DVT likely iyo DVT unlikely haddii marka pointiska ay heshay marka isku dabarsatid ay noqdaan labo iyo wax ka badan haddii ay noqdaan waxay noqonaysaa maxaa la dhahaa waa DVT likely ayuu noqonayaa bukaanka haddii maxaa la yiraahdaa oo hal ama ka yar yahayna DVT unlikely ayuu bukaanka markaas ayuu noqonayaa marka adoo ka duulaya labadaas DVT likely iyo DVT unlikely ayaa marka waxaan qaadaynaa algorithm-kan ayaan fiirinaa insha Allah tacaala okay algorithm-kan haddaa ujeedaan markii ugu horeysay
bukaanka waxa waaye history ka qaaday examination aan samaysay waa ka shakisay dan waxaa samaysay probability test ama assessment ayaa samaysay haddii marka bukaanka oo DVT likely haddii uu yahay aan ka hormar midka hore DVT unlikely haddii yahay oo ay DVT inaysan jirin ay u badan tahay oo low probability bukaanka yahay bukaankaas waxaa u diraysaa D-dimer ayaa u diraysaa D-dimerka marka haddii uu negative yahay no DVT wax kale inaad samayso uma baahnid ultrasound uma diraysa bukaankaas waxaa leedahay maxaa lahaa waa billahi tawfiiq waa fasaxaysaa bukaanka haddii D-dimerka uu positive ku noqdo macnaheedu waxaa waaye meesha saddex aan ka soo noqday oo negative-ka waxaa waaye D-dimerka wuxuu leeyahay wax la yidhaahdo negative predictive value oo very strong ayuu leeyahay hadduu marka negative yahay it always has very good maxaa la yidhahdaa negative predictive value ayuu leeyahay haddii laakiin D-dimerka positive noqdo markaas waxaa u baahan tahay compression venous ultrasound ayaa u baahan tahay ultrasound aad bukaanka u samaynaysaa ultrasoundkii marka laba mid uu ku sheegay haddii DVT hadday jirto ama proximal DVT haddii ay tahay iyo haddii ay tahay isolated distal DVT in loo sameeyo complete venous waxaa laga wadaa lugtoo dhan ayaa la saarayaa ultrasoundka loo sameynaya marka haddii marka ay bukaanku u qabo proximal DVT hadduu qabo that is straightforward you have already made the diagnosis for DVT daawada ayaad bilaabaysaa markaas anticoagulationka ayaad bukaanka u bilaabaysaa iyadoo la marsiinayo saddex phase midkood initial anticoagulation aad u samaysid that is 3 to 6 months iyo maxaa la yidhahdaa maya initial waxa waaye waa fast maxaa la yidhahdaa 10 ama marka qaar waxaa la gaarsiiyaa 3 weeks maxaa la yidhahdaa waa 10ka beri ugu horeysa anticoagulation aad u samaysid kabacdina midda ku xigta oo 3 bilood ama 6 bilood ahayd iyo haddii bukaanka markaas uu criteria soo galo oo u baahdo indefinite anticoagulation hadduu u baahdo halkaas ayuu ka baxaya haddii marka ay isolated distal DVT aad ku aragtay ultrasound-kane waxaa la calculate garayaa risk of recurrence bukaankan inuu recurrence iyo progression waxaabaasaa la fiirinaya haddii marka riski uu ahaa yahay you treat as a proximal DVT haddii risk of recurrence-ga uu low yahayna halkaas waxaa waaye dhakhtarka ay ku xiran tahay asaga go'aanka uu gaaro haddaa rabto waad daaweyn kartaa haddaa rabtana waxaa u samayn kartaa waxa la yidhahda surveillance oo ultrasound ayaa bukaanka u samaynaysaa maxaa la yidhahdaa waa jeegaraynaysaa marka cabaar jooga fiirinaysa haddii thrombuskan aa meesha ku aragtay haddii uu samaynayo progression haddii uu horey u soconayo haddii uu baaba'ayo marka taas waa dhakhtarka iyo go'aanka uu qaata ayay ku xiran tahay isagoo markaas fiirinayo bukaanka iyo characteristiskiisa iyo xaaladaha isagoo fiirinayo ayuu fiirinaya marka algorithmka markaa fiirisid si simple uu soo koobayaa clinical suspicion aa leedahay probability test aa samaynaysaa likely unlikely midkii kusoo baxa haddii unlikely ay noqoto D-dimer samee hadduu normal yahay wabillahi tawfiiq haddii uu positive noqdo dhinaca kale ayuu aadaya ultrasound ayaa u samaynaysaa I think inuu clear yahay si fiican loogu jeedo slide-kaas okay dumarka oo uurka leh inta badan ma la isticmaalo D-dimer for maxaa la yidhahdaa DVT diagnosis sababtoo ah is always high in maxaa la yidhahdaa D-dimerka uu badan yahay dadka oo pregnancy-ga marka see loo diagnose garaynayaa suspected DV in pregnancy ultrasound-ka loo sameynaya yeah proximal vein compression ultrasound ayaa loo samaynayaa haddii positive noqdo then straightforward waaye haddii ultrasound-ka waxba ka soo bixi waayeen clinical suspicion-kaaga haddii uu high yahay waxaa aadaysaa other modalities of maxaa la yidhahdaa diagnosis contrast maxaa la MRI iyo waxyaalahaas ayaa imaging kaleeta ayaa aadaysaa haddii positive noqdo waad daaweynaysaa haddii suspicion-kaaga uusan high ahayn oo ultrasound-kii negative ku yiri shaki badan oo DVT-na uusan kugu jirina waxaa u samayn kartaa bukaanka serial compression ultrasound serial compression ultrasound ayaa u samaynaysaa day 3 day 7 taasi haddii marka ay negative noqdo maxaa la yidhahdaa waa follow up baa samaynaysaa hadduu dabcan positive noqdana treat baad daaweynaysaa marka diisa waxaa waa ka duwan tahay pregnant ladies-ka diagnosis-ka uu ka yara duwan yahay okay management-iga how do you manage now we come to the management diagnosis-ka waa isla amrayna how do you manage DVT dabcan qaybaha kale oo prevention-ki waxaabaas teamka kale asxaabteeda kale colleagues kale ay soo jeedin aniga waa management-iga aan ku ekahay insha Allah waa balaaran yahay management of DVT laakiin intii aan ka gaari karay ayaan sameeyay ayaan insha Allah soo gudbin doonaa marka DVT management-igeeda waxyaabahan ayaa marka horeeto loo baahan yahay inay maskaxdaada ku soo dhacaan DVT marka la manage garanayo waxaa loo baahan yahay wax la yiraahdo initial anticoagulation loo baahan yahay okay maxaa waaye marka initial anticoagulation
markii DVT-ga bukaanka laga helo oo la diagnose gareeyo waa daawada la bilaabayo immediate markii hore laga bilaabayo waaye inta badan maxaa la yidhahdaa up to 10 days ayaa la siiyaa bukaanka meelaha qaar 21 days waa arkay literatureka qaar dhahaya laakiin up to 10 days ayaa la siiyaa 10 days marka bukaanka marka aad initial anticoagulation aad u samaysid haddana waxaa u balan garaynaysaa waxa la yidhahdo long term anticoagulationka ayaa u balan garaynaysaa okay so long term anticoagulation muxuu yahay asna waa for finite period ayaa la siinayaa beyond the initial period inta badan 3 months ayaa la siiyaa mararka qaar ilaa waxaa la gaarsiiyaa 6 bilood and occasional sometimes 12 months ilaa sanad ayaa la gaarsiin karaa okay marka this waa long term maxaa la yidhahdaa anticoagulation okay okay waayahay markii DVT marka la manage garaynayo waxyaabahan inay markasta xisaabtaada ku jiraan loo baahan yahay always bukaanka waxaa siinaysid waa anticoagulant always marka waxaa jiraya risk of bleeding ayaa jiri kara sidaa darteed you have to individualize your decision-ka aad samaynaysid ma jirto waxa la yidhahdo one size fits all ma jiro you have to individualize bukaanka hal laba bukaan oo DVT qaba inaad mid si gaar u daweyso ayaa laga yaabaa at the same time daawadan bukaanka aad siinaysid waa anticoagulationka waxaa markasta jiro risk of bleeding markasta waa jira risk low ha noqdo ama high ha noqdo laakiin always risk of bleeding waa jira sidaa darteed waxaa loo baahan markaa daawada anticoagulation bilaabaysid markasto faa'iidada inay ka badan tahay maxaa la yidhahdaa risk of bleeding inay ka badan tahay ayaa loo baahan yahay okay maxaan siinaynaa marka bukaanka maxaan ku daaweynaynaa selection of agentia which medicine do we give for the treatment of deep vein thrombosis okay options kan haysanaa marka these are the options oo aan haysanaa low molecular weight heparin waan isticmaali karnaa waxaan kaloo isticmaali karnaa fondaparinux ayadan waa isticmaali karnaa waxaan isticmaali karnaa unfractionated heparin waxaan isticmaali karnaa daawooyinkan la yiraahdo oral maxaa la yiraahdaa factor 10 inhibitors ama direct thrombin inhibitors DOACs ama NOACs magacyo badan ay leeyihiin NOAC kuwan waa isticmaali karaa waa daawooyin cusub oo hadda kii ugu dambeeyay oo soo baxa waayo waagii hore hadda way cusub yihiin marka aad loo isticmaalaa marka all options kan ayaan haysanaa ayaga baa la kala dooranayaa ayadoo bukaanka marka la tixgelinayo xaaladda uu ku sugan yahay okay for initial anticoagulation ka maxaan sameynaynaa bukaanka waxaa jira special population jira laakiin for general population ka caadiga for most patients oo qaba maxaa la yidhahdaa venous thromboembolism oo hemodynamically stable ah ya bukaanka hadduu hemodynamically stable yahay waxaan ku bilaabaynaa maxaa la yidhahdaa doctor hal mar aan ka dhex gala doctor Saab aye waxaan ka codsanaa waqtiga oo aad u kooban maanta xogaan noo fududays insha Allah marka bukaanka markuu hemodynamically stable ka for initial anticoagulation waxaan siinaynaa subcutaneous maxaa la yidhahdaa heparin low molecular weight heparin initial anticoagulation ka hadlayna ama waxaa siin kartaa fondaparinux waa siin kartaa waxaa kaleetoo siin kartaa ayadana as initial maxaa la yidhahdaa anticoagulation factor 10 maxaa la yidhahdaa activated factor 10 inhibitors ka siin kartaa sida matalan rivaroxaban iyo apixaban labadan ayaa si monotherapy ahaan loo in la bilaabo la hadda la approve gareeyay mara you can marka give us initial therapy midka saddexdan midka adiga markaas ku suura galaya ayaa siin kartaa waxaa marka jirto data oo dhahayso low molecular heparin iyo fondaparinux way ka fiican yihiin unfractionated maxaa la yidhahdaa unfractionated heparin way ka fiican yihiin laakiin sidoo kale DOACska ama daawooyinkan oo novel oral anticoagulantiska sidoo kale heparinta iyo warfarinta iyo waxaas ayagana way la mid yihiin dhinaca efficacy-ga way la mid yihiin oo sidoo u shaqeynayaan laakiin waxa adiga go'aanka aad qaadanayso wuxuu ku xiran yahay experience-gaaga bleeding risk-ga lacagta bukaan waxaan cost waxaan ay joogaan waxyaabo badan ayaa qiimeynaysa mararka qaar daawooyinkan oo NOACska marka laga hadlaayo
bukaanada qaarkood inaan u qoro aniga waan ka yara ka cabsadaa because duruufaha anaga aan ku sugannahay oo kaleeto matalan waddan waxaa joognaa riskiisu iska badan yahay qofka uu qarax la kulmi karo dhaawac gaari karo yani wax emergency iska dhici karo mogtaa waddan aan stable aan joognaa antidote-koodana ma haysano aniga kule haddii meel yaalla waa la sheegi doonaa laakiin dawooyinkan antidote-kooda ma haysano marka reversibility-ga problem bay noqonaysaa laakiin bukaanka hadduu matalan qaadanayo kalaxane uu qaadanayo maxaa la yihahdaa heparin uu qaadanayo ama warfarin uu qaadanayo waa simple you can reverse macnaa si simple marka waa la isticmaalo laakiin you need to be very cautious markaad dawanka isticmaalaysa okay daawooyinka marka aan dhahnay heparinta iyo fondaparinux iyo factor 10 inhibitorska exceptionka waxaa ka baxaya bukaanadan looma isticmaalo pregnant lady looma isticmaalayo daawooyinka hadda aan ku soo sheegay bukaanada qaba active cancerka looma isticmaalayo bukaanada qaba severe kidney impairment looma isticmaalayo oo maxaa la yihahdaa creatinine clearance-gooda uu ka yarahay soddonka uu ka yarahay daawooyinka marka oo initial therapy-ga dowakiska waa kasoo hadla daay rivaroxaban iyo abaxaban ayaa monotherapy loo isticmaali karaa haddii aad isticmaalaysid kuwan kaleeto dabigatran ama endoxabanka dabigatran waxaa la yihahdaa thrombin inhibitor-ka waay ya direct thrombin inhibitor waay iyo endoxabanka oo kamid a kuwan kaleeto kuwaas haddaa isticmaalaysid waxaa u baahan tahay marka hore inaad ka hormarisid low molecular heparin inaad marka hore bukaanka up to 5 days inaad siisid kabacdina kuwan ayaad siin kartaa macnaha ilaa 5 days camal ayaa siinaysaa laakiin rivaroxabanka iyo abaxabanka ma u baahno inaad heparin aad ka hormariso uma baahno waxaa la sequential therapy ayaa loo baahan yahay kuwan dawakis daawooyinkan oo dawakiska haddaay basaan soo sheegnay bukaanada oo qaba hemodynamically unstable bukaanada lama siin karo macnaha lama siiyo looma isticmaalo marka sababta waxaa waaye bukaanada hemodynamic unstable-ka oo matalan pulmonary embolism ama qaba massive maxaa la yihahdaa iliofemoral DVT qaba lama siinayo sababtoo ah waxaa laga yaabaa bukaanadan in loo sameeyo procedure loo sameeyo marka oo hadhow inay intervention ama procedure loo sameeyo ama thrombolysis in la siinayo laga yaabaa marka risk of bleeding-kii iyo khatartii ayaa badanayso kaas lama siinayo low molecular heparin waa daawo aad u fiican ayada haddii maaragtay oo aan contraindication uusan jirin maxaa la yihahdaa waa preferred bukaanada oo aan oralka qaadan karin matalan bukaan oo waxba qaadan karin ama bukaan absorptionkiisa uu fiicnayn fondaparinux waa loo isticmaali karaa laakiin inta badan waxaa loo isticmaalaa as an alternative to low molecular heparin ayaa loo isticmaalaa unfractionated heparin sometimes waa la isticmaali karaa idinteed laakiin for selected population bukaanada qaba renal failure hemodynamically instability bukaanada qaba sababtoo ayada waa joojinaysaa 3 saacaod ka bacdi jirka way ka baxaysaa wixii kale marka procedure waa samaysan kartaa macnaha bukaanada qaba extensive clot burden ayay inta hadda intervention samaynaysa iyo bukaan anticipated maxaa la yihahdaa need for discontinuation bukaanada oo maxaa la yihahdaa obesity-ga ama poor subcutaneous absorption ka qabo kale hawaas ayaa loo isticmaali karaa okay warfarin daawo fiican waaye laakiin ayada maxaa la yihahdaa si lama isticmaalo si gaara looma isticmaalo as only initial antidote looma isticmaalo waa inaad heparin raacsiisi waayo low molecular heparin aad ku dartid waayo keligeed ma isticmaali karin marka full anticoagulation aad gaartid ayaad heparinka ka baxaysaa ayadaa usii wadan kartaa markaas way fiican tahay inkastoo u baahan tahay in la monitor gareeyo markasta okay waa dhownahay good waxaa jira marka wax la yihahdo special populations dad gaar ah jiro oo ka baahan dadka renal failure qaba ka soo hadalnay inta badan looma isticmaalayo daawooyinka daay aan u isticmaalayna initial anticoagulationka waxaa la siinayaa unfractionated heparin ayaa la siinayaa bukaanada hemodynamically unstable-ka sidoo kaleeto heparinta caadiga ahayd oo low molecular weight-ka iyo lama siinayo kuwaas lama siinayo iyo dawakiskii iyo lama siinayo waxaa la siinayaa unfractionated heparin ayaa la siinayaa bukaanada qaba extensive clot burden waa kasoo hadalnay haddii discontinuation ama reversal loo baahan yahay yes ayaga naftooda waxaa waaye daawooyinkaas reversalka uu dhib badan yahay duwakis oo kaleeto how do you reverse toxicity hadduu develop galayo oo rivaroxaban hadduu maanta develop galayo bleeding uu keeno maxaa sameyn halkii mar oo reversal loo sameynayo lacag $1,000 ku dhaada ayay ka hadli jireen marka absorptionka bukaanka hadduu soo maartay oo kaada obese-ka oo kaleeto ama bararkoodu badan yahay oo kaleeto bukaanadaas waxaa la siinayaa
unfractionated heparin ayaa la siinaya malignancy waa ka soo hadalnay pregnancy-ga iyo heparin induced thrombocytopenia bukaanada qaba thrombocytopenia due to heparin naftooda lama siinayo heparin of course lama siinayo okay fundobaranikiska ayaa alternative u noqon kara marka qaar waa la isticmaali marka long term anticoagulation horaan usoo sheegnay waxa weeyaan markaa kasoo baxday initial anticoagulationka bukaanka daawadii ayaa usii wadaysaa maxaa la yidhahdaa 3 to 6 months asii wadaysaa extended marka anticoagulation option aa jiro extended waxaan ka wadnaa qofka daawadii in la siiyo for maxaa la yidhahdaa indefinitely in la siiyo oo la yidhaahdo intaa nooshahay anticoagulation kan qaada in la yidhahdo go'aankaas go'aan sahlan maaha in la gaaraan runtii waa dhib badan yahay markaad gaaraysid go'aanka oo bukaan aad ku xukumaysid intuu nool yahay inuu anticoagulation qaato markaad ku xukumaysid waxaa loo baahan yahay inaad assessment ku samaysid laba shay kow bleeding riskiga inaad markastaba aa assess garaysid labo risk of recurrence oo bukaankan in oo venous thromboembolism mar kale inuu ku dhaco riskiga see waayo haddii riskigu low yahay ama intermediate yahay ama uu high yahay bleeding haddii uu low yahay ama intermediate ama uu high yahay all factors score la isticmaala jiro oo fara badan aniga hadda ma soo qaadanin you can check for your own time laakiin scoreskaas adoo isticmaalaya ayaad go'aankaas gaaraysaa marka haddii marka recurrence-ga oo riskiga bukaanka haddii uu low yahay of course lama isticmaalayo waa sida qoraalka uga jeedaan low waxaa loo jeedaa less than 3% per year waana cumulative for 5 years waxaa laga hadlaya risk of recurrence for 5 years laga hadlaya intermediate hadduu yahay high hadduu yahay maxaan samaynaynaa marka kan waa isla kii hadda oo aan ka dhigay time table waaye waa dhammayn rabnaa almost this I think it is the last slide haddii marka bukaanka oo recurrence of venous thromboembolism haddii uu riskiga high yahay bukaankaas waa ku qasban tahay inaad siisid indefinite anticoagulation aad u samaysid bukaanka for life inaad tiraahid anticoagulation kan weligaa wad inaad tiraahid bukaanada mar kastaba oo risk of bleeding uu high yahay markaad calculations haas bled waxyaaba badanaa jiro VTE bled waxaa jira score la isticmaalaa jiro scoreskaas markaa isticmaasha haddii riskiga oo bleeding uu badan yahay indefinite bukaankaas ma siin kartid ayadan lama it's not recommended macna lama saynayo okay si walba ahaatee bukaan kasto duruufaha asaga ku xeeran iyo xaaladiisa ayaa mar kasta ku xadidi doona laakiin haddii bukaanka high risk of recurrence for venous thromboembolism haddii uu jiro indefinite u baahan intermediate recurrence ayada waxay ku xiran tahay hadba adig go'aanka dhakhtarka suu go'aamay ku xiran tahay haddii recurrence-ga oo riskigu uu low yahay bukaankaas ma u baahna inaad siisid maxaa la yidhahdaa indefinite anticoagulation adigoo isticmaalayo skooradii oo risk of recurrence calculate garanayo risk of bleeding calculate garanayo haddii go'aanka uu gaaro oo aad tidhaahdo maxaa la yidhahdaa waa recurrence-na waa low risk of bleeding-kana waa low hadaad tidhaahid ama waa high maxaa la yidhahdaa ma u baahnid inaad indefinite anticoagulation bukaankaas inaad u samaysid u baahnid marka extended anticoagulation waa go'aan yar adag waa very difficult in la sameeyo laakiin haddii bukaanka high risk of recurrence yahay waa ku qasban tahay in aad siisid عمل هذه the last one هذا ما سنتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا ما سنت دكتور إسحاق وحرجينا إن لما سوق الجلياش أي واحد بدنا كفائدين presentation كاجا كوساب سنة دي vein thrombosis وحكو حاجة وأن هو ريجيندونا ميكروفون كا دكتور عوالة وجنرال سيرجري دكتور عوالة مين قشاه بسم الله دكتور وانكم عوالي ودكتور قليل كجود علمي بارع يو سينيور ليكتشرر كا سميت هوسبيتال جامعة السمت وحونا هي جنرال سكرتري اوف سيرجيكال سوسايتي اوف سوماليا اما حوغيها جود اوركا قلينكا سوماليا وحوانك سوحو كسابسين دي في تي بروفيلاكسيس ان جنرال سيرجري دكتور عوالي برزنتيشن كاغا وشرغري كرتا and the stage is yours. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد waxaan rabaa inaan u mahadceliyo madaxda ururka dhaqaatiirta qalliinka Soomaaliya dhaqaatiirta lafaha Soomaaliyeed oo runtii kulankan isku keenay dhaqaatiir oo waliba multidisciplinary ama dhaqaatiir kala duwan waxaan rabaa inaan mar kale u mahadceliyo saaxiibkay oo wixii aan sheegi lahay oo dhan sheegay Dr. Isaac DVT
annaga inta badan saa la socotiin waxay ka mid tahay waxyaabaha noogu badan aan aragno markii bukaanada isbitaalka lagu qalo walow qayb walba ay si gooniya ay u saameyso marka sawirka koowaad aa arkaysaan waa bukaan qaliin loo sameeyey xididadaas aa arkaysiin waa deep veins waxaan oo madowga aad arkaysiin waa thrombiskii oo gudaha ku jira soo bukaan qaliin aan u sameynayno ahaa kanna waa thrombigii laga soo saaray sida aad sawirka ka aragtaan waxaan rabaa marka inta badan maadaama la sheegay laakiin waxyaaba yar aan taabanaya oo la xiriira maxaa la yidhaahdaa deep vein thrombosis annaga cases-keena inta badan aan aragno deep vein thrombosis as surgeons ama dhakhaatiirteena caadiga qalliinka bukaanadan oo inta badan u yimaada isbitaalka conditionskan oo sida cellulitiska unusually waxyaabaha loo baahan yahay waxaa kamid ah in differential diagnosis laga sameeyo cellulitis bukaanadan qaba peripheral arterial occlusive disease oo ayagana xididada inta badan ay xiran yihiin ayagana should be checked also bukaanadan sariirta inta muddada badan saaran oo qaarkood ay qabaan maxaa la dhahaa pressure sores ayagana waxaa waaye waxay kamid yihiin bukaanada aan ku aragno waxaan kaloo ku aragnaa bukaanadan oo aad da-da waaweyn haddaa siduu doctor Isaac sheegay iyo qalimada waaweyn oo inta aan kusoo sheegay weliba waxaa jiro ilaa 3 qayb ayaan u kala qaybinay bukaanada riskiga ku jira marka laga hadlayo maxillofacial surgery neurosurgery cardiothoracic surgery any kind of those surgeries waxa waaye waa low risk waay medium risk waxaa ku jiro qalimo inta badan anaga aan sameyn oo ah eernada ama inguinal hernia abdominal surgery whether it is elective or emergency labadaba ayagana riskiga ku jira ama bowel maxaa la yidhaahdaa anastomosis hala sameeyo ama what kind of abdominal surgery haddii ha noqoto ama ha noqoto cholecystectomy so waxay ku jiraan bukaanadaas oo dhan waxay ku jiraan ama xamiite hala saaro ama spleen hala bixiyo ama appendiciska oo kale iyo qalimada kulli marka la sameynayo kulli waxay ku jiraan abdominal surgery so they are medium urology caseskooda oo weliba prostatectomy markay sameynayaan either TURB ama kuwa kale ama stones hadday bixinayaan ama urinary bladder ama ureter so kuwaas oo dhan ayagana risk ku jiraan waana medium risk high risk waxaa ku jiro pelvic surgery iyo saaxiibadii maantana marti qaaday oo limbisk ando ama orthopedic ayagana waxaa waaye waxay kamid yihiin maxaa la yidhaahdaa shaqooyinka ay qabtaan shaqooyinka ugu riskiga badan ee bukaanada ay develop garayaan deep vein thrombosis qalimadan total knee hip insha allah waxaa ka hadli doona colleague ayagana waxay kamid yihiin qalimada oo high doctor cawaale codkaaga wuu hooseeyaa ka codsanaa inaan kor u qaadiyo hadda ha codkayga si hadda loo maqlaa waa fiican yahay tore wax yar wuu hooseeyey insha allah korna waa marka maxaa loo baahan yahay bukaanadan in markii la daaweynayo deep vein thrombosis waxyaabaha loo baahan yahay waxa waaye multidisciplinary team in la helo dhakhaatiir oo hematologist ah haddii la heli karo internist oo sida hadda Dr. Isaac oo kale ama cardiologist in la helo waxaa kaloo loo baahan yahay haddii some kind of surgery in order to remove the thrombus ayagana waxaa loo baahan yahay vascular surgeries iyo ayaa loo baahan yahay so marka intaasoo dhan waxay iska wada kaashanayaan sidii loo daaweyn lahaa bukaanadan deep vein thrombosis for anatomy deep venous sida meesha sawirka ka muuqato waxaa jiro 3 vein deep perforator vein iyo superficial vein so marka deepka waa kuwa aad hooseeya oo maxaa la yidhaahdaa waxayna ku yaalaan inta badan between the skin and muscular fascia sidaan ognahay waxaan dhahnaa waa one of the haddii aad aragtaan aan dhahnaa bukaan inta la qalay maalinta ku xigta u dhinto inta badan pulmonary embolism aan keeno laakiin saa la socotiin vein thrombosis waxaa one of the risk factors oo bukaanadeena inta badan aan ka fikiro waxyaabaha loo baahan yahay marka waxaa kamid ah all hospitals should have screening process oo sidii qalimo ama maxaa la yidhaahdaa ama preventive measurement loo sameyn lahaa and I will talk with some preventive measurement oo ay ka mid tahay daawooyinka la siinayo ama compression stock ama calf bum waxay dhahaan oo lugaha iyo as a pressure ahaan loo isticmaalo kuwaasoo dhan la isticmaalo iyo on top of that risk assessment in bukaanadan loo sameeyo prior ama before the admission intaanan bukaankii waxyaabahaas oo dhan aan la admit garaynin waxyaabaha u baahan ka mid ah so marka inta badan doctorkii saaxiibkii ka hadlay
laakiin waxaan rabaa inaan ka hadlo wax la dhaho BPS ama post thrombotic leg iyo venous ulceration waxay ka mid yihiin waxyaabaha bukaanada ay noogu yimaadaan markii aan rabno in assessment ka sameyno DVT. Etiology waa laga wada hadlay, risk factors kulli waa laga wada hadlay, kuwa aan hadda ka hadlay qaliimada aan ka hadlay ay ka mid ahaayeen iyo physiotherapy uu dhakhtarka ka hadlay. marka more I will concentrate on maxaa la yiraahdaa qalliinka iyo waxyaabaha la sameeyo iyo waxyaabaha anaga as marka isbitaalka noogu imaadaan oo kale waxyaabaha aan sameeyo. bukaanada inta badan marka isbitaalka noogu imaadaan usually they complain about pain and swelling especially in the calf. marka qaarkood waxay kugu imaan karaan which is one in third bilateral DVT oo ah labada lugood. marka qaarkoodna differential diagnosis aad u baahan tahay inaad ka samayso bukaanada oo renal failure ama heart failure qabo. waxaa kaloo jirto bukaanadan qaarkood oo DVT-ga qabo waxay u eg yihiin cellulitis. so markay saas kala noqoto waxaa la phlegmasia alba dolonis ama phlegmasia cerullar dolonis. so marka lugta waxay noqonaysaa cyanosis laakiin waa ka xuma annaga dad madmadow aan nahnay. taa ayaana keenaysa maxaa la yidhaahdaa in waxyaabo qaarkood calaamadahan aan meesha ku sheegeen inaan qofka laga arkin. waxyaabaha kale kugu imaan kara waxaa kaloo kamid ah gangrene oo symmetrical ah marka qaarkoodna faraha qaybta hore oo dhan saameynaysa bararna lahaan karta waxyaabahaas oo dhan. maxaa marka annaga markii ay bukaanada noo yimaadaan aan sameynaa sida hadda laga sheekeynayay modified Wales criteria oo score ah oo la fiirinaya qofka probability-ga inuu yahay low probability which is 5% oo score la isticmaalayo iyo moderate probability iyo high probability. marka high probability lagu yiraahdo macnaheedu waxaa waaye waxaa haystaa more than 2. so mararka qaarkood waxaa la dhahaa qofka hadduu yahay intravenous drug use hadduu yahay kale qalliin lugaha uu galayo kale qofkan uu old age yahay waxyaabahaas oo dhan waxay ka qayb qaadanaysaa inuu qofkii uu high risk u yahay oo cudurkii u qabo. waxaa kaloo jirto baaritaano kaloo la sameeyo prior D-dimerka hadda dhakhtarku ka sheekeynayay. waxaa kaloo waxaa kaloo la sameeyaa kuwan kale oo exclusion in looga sameeyo ayagana ay muhiim tahay sida C-reactive protein iyo ESR. kan waxaa waa compression ultrasound ayadoo la sameynayo si ayadana loo ogaado haddii ay femoral artery and femoral vein subclavian vein marka la saaro si loo fiiriyo waxay dhihi jireen diameterka iyo haddii thrombus iyo waxyaabahaas ay ku samaysmeen kale. mararka qaarkood waa la sawiri karaa phenograph MRI. pulmonary angiogram ayadana waa la sameeyaa si oo maxaa la yiraahdaa loo ogaado markaas oo kale haddii ay venous thrombosis hadda laga sheekeynayo kale adeet oo kale. D-dimer kuwan waxay kamid yihiin lab testiga la sameeyo. waxaa kaloo la sameyn karaa coagulation cascade ama coagulation studies ay kamid tahay prothrombin time iyo ABTT oo activated partial thromboplastin time. see marka maxaan anaga sameynaa marka bukaanadan oo kale inta aan qalliinka loo sameyn ama haddii loogu yimaadaan oo kale maxaa sameynaa laba management oo caan ah jirto mid ay dhahaan mechanical iyo mid ay dhahaan pharmacological horaa looga hadlay laakiin mechanical maxaa la sameeyaa waxyaabaha aan sameyno waxaa kamid ah compression stop oo ah in oo qofka sockets ama compression inay sisaanadan oo kale xirtaan oo kale. waxaa kaloo la sameyn karaa pneumatic compression si sawirka hadda ka muuqato oo kale kuwan oo kale waa loo xiraa. waxaa kaloo la sameyn karaa tan laakiin inkastoo ah study saxa loo helin faa'iidada ay leedahay electronic nerve stimulators oo ayagana xididada iyo maxaa la yiraahdaa thrombuska iyo waxyaabahaas dhaqaajina laakiin wax oo hadda cilmi baaris sax ma jirto. waxaa kaloo la sameyn karaa casting laakiin ayadana waa meelaha qaarkood ayaa laga sameeyaa. waagii hore waxaa la sameyn jiray low dose unfractionated heparin oo ayada ama loo siiyo subcutaneous ama intravenous. labadaba xoogaa waxay leeyihiin faa'iidooyin ayay leeyihiin walow hadda aan ka sheekeynayno ma rabo inaan mar labaad ku laabto. maxaa marka la sameyn karaa annaga hadda marka isbitaalka aan joogno kale waxyaabaha aan sameyno kale markii aan xaqiijino inuu bukaanka qabo waxaa loo bilaabaa low molecular weight heparin oo weliba ayadoo lala soconayo D-dimerka iyo lala soconayo iyo bukaanka calaamadihii uu marka hore ku yimaaday. marka la fasaxayana waxaa sidoo kale la sameynaa in la siiyo indirect factor 10 inhibitors ama direct thrombin inhibitors kuwaas ayaa inta badan lagu fasaxaa.
daawooyinka hadda laga sheekeynaya dibictaran ayagana waa la isticmaalaa laakiin maadaama ay qaali yihiin ayagana maxaa la yidhaahdaa culeyskooda iyo waxyaabahooda leedahay iyo maadaama aan helin antidote iyo waxyaabaha la sameynayo haddii intaasoo dhan ay xalli weyso maxaa xala inkastoo ay saaxiibaday vascular surgeon ay meeshan ku habboonaayeen waxaa jirta endovascular surgery oo ah macnaheeda ama in maxaa la yidhaahdaa thrombuska meesha ku jiray laga soo saaro ama la burburiyo mararka qaarkood daaweyn ayaa la siiyaa si oo si ay clotkaas uu meesha ugu burburo waxaa kaloo la samayn karaa ayada in toos ahaan loo soo baxsho surgical thrombectomy in la sameeyo ama mararka qaarkood waxaa kaloo la samayn karaa inferior vena cava filter in la dhigo si oo si shabaq oo kale waaye wax kale ma qabanayo wuxuu sameynayo waxyaabihii meeshaas ayuu kala reebaya wuuna burburinaya waxaa kaloo la samayn karaa replacement of venous valve oo ayadana maadaama maxaa la yidhaahdaa meesha ay dhiigga ay fadhiisanayeen in ayagana la bedelo walow ayagana ay aad badan tahay stentina waa la samayn karaa oo la dhex dhigo si oo ayadana looga yaray xididada dhiigga ay fadhiisanayeen so kuwaas oo dhan waxyaabaha la sameeya ay ka mid tahay kuwaan daawooyinkii hore looga hadlo waayo mar raba inaan ku laabto antiplatelets ayaga xataa waxay ciyaaraan role weyn oo cox1 inhibitors aspirin iyo kuwan kale oo ayagana la isticmaalo B2Y12 inhibitors oo carbidogrolka kuwaas ay ka mid yihiin and so on waana mahadsantihin asalaamu calaykum waraxmatullah aad iyo aad u mahadsantahay doctor cawaale actually wuxuu ahay presentation precise oo faa'iido badan leh waa kaaga mahadcelinaynaa waqtiga aad gelisay soo diyaarintiisa waxaan gudbaynaa presentationka saddexaad uu noo soo jeedin doono doctor sayid doctor sayid waa dhakhtar qaliinka lafaha iyo dhaawacyada wuxuu ka howlgalaa Jazeera University Hospital sidoo kale waa chairmanka orthopedic Somali Orthopedic Association gudoomiyaheeda wuxuu noo soo jeedin doonaa cinwaan DVT prophylaxis in orthopedics دكتور سيد سودو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حسن والله مقلعات كيف تصيح واسولا؟ يا دكتور. اوكي. دكاترة هذا هم سنتين دكتور حسن iyo tiimka dhammaan nala qayb galaayo presenteradii hore si koobana waxaan uga hadli doonaa DVT prophylaxis in orthopedics. Objectives aan cover garayn doono waxa ugu muhiimsan preoperative risk assessment iyo risk ugu jira kadib waxaan ka hadli doonaa qaybaha kala duwan iyo meelaha kala duwan ee factorada objective saddexaad aan cover garayn doono wuxuu noqon doonaa prophylactic strategies methods kala duwan ee la isticmaalo iyo doodaha ka taagan waxyaabaha hadda la sameeyo sida daawadee la qaadanaa meeqa beriyaa la siinaa iyo su'aalo badan oo ku xeeran marka sidii hore loo sheegabo DVT iyo in general venous thromboembolism waxay ka mid tahay complicationada ugu badan ee ku dhaca bukaanada inpatientiga ha ahaadaan bukaanada medicalka ama ha ahaadaan bukaanada surgicalka inkastoo bukaanada surgicalka ay aad u badan yihiin haddana haddii lasii fiiriyo bukaanada general surgery iyo bukaanada orthopediga waxaa aad u sii badan bukaanada orthopediga DVT sababta ugu weyn ee loola dagaalamayo ee looga hortagaayona waxay tahay waxay horseedi kartaa fatal pulmonary embolism dhibaatadaasna haddii DVT laga hortago pulmonary embolism waa laga hortegi karaa dhimashadii bukaankana waa laga hortegi karaa haddii marka aanan laga hortegin oo bukaankii risk assessment aanan loo sameynin daawana ama mechanical prophylaxis aanan loo sameynin halista bukaankan inay DVT uu dhacdo tusaale ahaan bukaanada medicalka ama bukaanada general surgeryga average waa 10 to 40% halka bukaanada major orthopedic procedurada sida hip fracture total hip total knee iyo qaliimada lamidka galayo riskigooda ay laba laab taastayo 40 to 60% ay tahay meeshaas waxaan ka arki karnaa bukaanada haddaanan wax prophylaxis loo sameynin riskiga DVT incidencegeeda inuu aad u badan yahay haddii laakiin bukaankii prophylaxis loo sameeyo riskigii inuu aad u yaraanayo weli wuu jiraa oo waa 1 to 10% laakiin marka loo fiiriyo 40 to 60% aad ayuu u yaraaday
waayan uga hortegaynaa waayan isu welwelinaynaa DVT why prophylaxis waxa ugu muhiimsan waxay tahay si studygan journalkan circulationka online lagu sameeyey waxay tahay in haddii aanan DVT-ga laga hortegin ay thromboskaas embolization sameyn karto horseedi kartana pulmonary embolism sidaa daraadeed muhiimadda ugu weyn ee looga hortagaa waxay tahay without prophylaxis incidency inuu kordhayo 40 to 60% uu gaarayo dhimashada bukaankii DVT-ga ay ku dhacday within one month uu u dhinto complicationadii DVT-ga waa 6% kadibna bukaankii BE from DVT ka timid asigana uu u dhinto halistaas ayadana waa 12%. Again, bukaankii xitaa badbaaday in ay recurrent DVT ku dhacdo within 10 years riskigeeda waa nearly 40%. Marka bukaankii ayada uu dhimanaa haddii uusan dhimanin uu ka badbaado halis wuxuu ugu jiraa recurrent DVT ama complication kaleeto sidii qaarkood la sheegay thrombotic syndrome wixii loo yaqaano oo kale si dhammaan waxyaabahaas marka looga fogaado waa in prophylaxis aan sameynaa sidii dhakhaatiirtii ugu horreeyay ay sheegeen waxaa jiro risk assessment tools waxyaabo badan la isticmaalaa sida kuwa American College of Just Physicians iyo kuwa kaleeto dhammaan risk stratification toolskan waxay ka siman yihiin certain risk factors oo la ogaaday in ay badinayaan incidency-ga bukaanka uu DVT ku qaadi karo kuwooda ugu muhiimsan waxay tahay haddii aan sawirka geeska fiirino major fracturada sida lower extremity trauma ha noqdaan bilateral femur fracture ha noqdaan tibia fracture pelvic fracture ama thoracolumbar iyo spinal cord injuries bukaanada noocaasa maadaama ay risk ugu jiraan immobilization iyo virtual stride Dr. Ishaq uu ka hadlay complication ka imaan karta surgery-ga immobilization-ka iyo coagulopathy-ga waa bukaanada ugu badan sidoo kale waxaa halis ugu jira bukaanada elderly-ga ee da'dooda ay 60 ama 75 sano ka weyn tahay marka in general risk stratification marka la sameynayo any patient oo risk factorskiisa marka la isku daro ay ka badan tahay 5 risk maxaa la assessment profile-kiisa uu 5 ka badan yahay wuxuu u nugul yahay 3 laab inay DVT ku dhacdo marka loo fiiriyo bukaanada RAB score-kooda uu 5 ka yar yahay age-ka factor waaye comorbidities kaleeto bukaanka sida cancer inuu leeyahay sida inuu major procedure dhawaanahan uu maray inuu previous DVT uu leeyahay iyo waxyaabo lamid ah ayaga nafsadooda waa risk factors laakiin maadaama qaybta orthopedic aan ka hadlayo remember bukaanadan ugu badan waa bukaanada lower extremity fracture la qabo kuwa pelviska qabo kuwa spinal cord injury qabo iyo kuwa elderly-ga remember waa kuwii hip fracture total hip major orthopedic procedure loo sameeyay haddii aan ka hadlo marka sidee looga hortagaa orthopedic maxaa la isticmaalaa 3 siyaabadan la isticmaalaa labada ugu badan waa mechanical pharmacological midka saddexaadna waa arki doonaa waa interventional oo vena caval filter la isticmaalaa I'm not sure in Somalia la sameeyo laakiin one of the methods of DVT prophylaxis loo sameeyo waa especially bukaanada contraindication ku ah maxaa la anticoagulant-iga mechanical prophylaxis waxyaabaha ugu badan ee la sameeyo waxa ugu muhiimsan waa early mobilization bukaankii in aad get out of the bed as early as possible si at least venous return-kii maxaa la dhahaa iyo venous stasis-kii looga hortago venous return-kiina dhaqso ugu dhaco waxyaabaha kale oo loo sameyn karo waxaa ka jira in sigsaamihii maxaa la dhahaa compressionka sameynaya ee elastiga ahaa loo geliyo in devices ay kamid yihiin pneumatic compression device bukaankii loo xiro ama any other method sida foot pumps waxyaabada suba pharmacological treatment way badan yihiin gadaal dambaan ka faahfaahin doonaa laakiin daawooyinka ugu badan ee la isticmaalo aspirin oo ah midka ugu caansan ugu fudud meel walba yaallo heparinska noocyadooda kala duwan vitamin K antagonist warfarinka daawooyinkan ay kamid yihiin factor 10 inhibitorska sida rifaxibanka iyo new generationskan daawooyinkan loo yaqaano doarka ama vena caval filter kuma daahi doono wuxuu kamid yahay one of the prophylactic methods of DVT looga hortago most of the time indicationada ugu caansan waxay tahay bukaan contraindication ku ah anticoagulant
ama maxaa la dhahaa complication ku develop gareeya anticoagulantiga nafsadeeda aan la siin karin. Mechanical prophylaxis haddii aan fiirino waxyaabo badan aan ka sheegna, laakiin kuwa ugu caansan ugu fudud every patient uu samayn karo lana ogaaday in ay reduction ku sameynayaan incidensiga DVT waa mobilization. sidaa daraadeed no matter inaad daawo isticmaalaysid iyo inaad other methods oo mechanical prophylaxis aad isticmaalaysid, waxaa muhiima in bukaanka early mobilization loo sameeyo. taas marka bukaan gooni ah oo la dhacayo bukaankan anticoagulant lagu qaadanayo uma baahna sariirta uu iska saarnaa karaa ma jirto. sidaa daraadeed marka early mobilization is the simplest and most applicable method oo DVT iyo venous thromboembolism loo hortegi karo. Pneumatic compression devices kaas aniga at least Soomaali ma isticmaalo, maybe teamkan Erdogan Hospital inay isticmaalaan, laakiin ayaga nafsadooda waxay kamid yihiin mechanical prophylactic toolska. ayagana waxay ka qayb qaadanayaan venous litaankii inuu socdo, maxaa la dhahaa fibrinolytic activity-ga oo maxaa la dhahaa in ay dhiiggii usan thrombus ku samaysmin. compressionkaas intermittentiga ah waxay fududeynaysaa soo noqodkii dhiigga. Pneumatic compression device-ka midda ugu muhiimsan waxay tahay mechanical prophylaxis keligeed ha noqoto early mobilization, compression stockiness, pneumatic compression device ama any other tool keligeed ma ku filan tahay inay DVT ka hortagto? jawaabtu waa maya. sidaa daraadeed combination of mechanical prophylaxis and pharmacological prophylaxis waa midda ugu fiican, inkastoo ay ku xiran tahay bukaanka waxa loo sameynaya riski stratificationkii bukaanka loo sameeyey. Pharmacological prophylaxis marka laga hadlayo waxaa meesha imaanaysa dood ah daawooyinkan riski waxay leeyihiin bleeding. haddii aanan daawadii la siinin riski waxay jirto oo bukaankii inuu ku develop gareeyo thrombuskaasna ay samayso embolization oo pulmonary embolism iyo wax lamid ah noqoto. marka daawooyinkan marka la asas gareynayo la kala dooranayo, we need to make sure safety-ga daawada iyo efficacy-geeda si aan u doorano daawo safe ah at the same time effective ah. daawooyinka qaarkood si dhakhaatiirtii horeysay ka hadlayeen waxay lahaayeen maxaa la dhahaa bleeding disorders, heparin induced thrombocytopenia, reversibility qaarkood ma lahayn, qaarkood antagonistigooda maxaa la lahaa ma yaalo kii lagu soo celin lahaa si loo joojiyo haddii communicationadii wax lamida dhacaan. marka risk waxay jirto bleeding at the same time haddii bukaankii aan la anticoagulate gareyn oo prophylactic therapy aan la sameynin risk waxay jirto thrombosis. daawooyinka ugu badan ee loo isticmaalo 4 group iyo aspirin waaye 5 group waa aspirin sida aan ognahay waa platelet inhibitors, COX-1 ayuu inhibit gareeyaa. daawooyinka kale ee afarta meeshka waxaa kamid ah warfarinkii oo vitamin K dependent antagonists-ka laga soo bilaabo factor 2-ga, factor 7-ka, factor 9-ka, factor 10-ka, kulligood factoradaas kala duwan ee common pathway-ga iyo extrinsic pathway-ga wada saameynaya. daawooyinka kaleeto ee common in la isticmaalo aspirinka marka laga soo tago waxa waaye heparinska ha ahaadaan ama fraction heparin ama low molecular weight heparin ha ahaadaan ama kuwa oralka ah sida enoxaparinka oo kaleeto. daawooyinkaas low molecular weight-ka waxay morely affect gareysaa ama ay ku shaqo leedahay factor 10A, halka fraction heparinka ay ku shaqo leedahay factor 2A. labadooda inkastoo labada 10A iyo 2A thrombinka ay saameeyaan, haddana mid walba waxay favor gareysaa maxaa la dhahaa factor gooniya. daawooyinka loo yaqaano maxaa la dhahaa oral anticoagulantiska new-ga ah sida dabidatranka iyo generationada kale ee lamidka ayagana factor 2A ayay inhibit gareeyaan. sidaa daraadeedna fibrinogenkii looma bedeli karo oo conversion laguma sameyn karo fibrinka. daawooyinka halaal haddaan u fiirino orthopedic daawooyinka ugu badan ee la isticmaalo waxaa kamid ah aspirinka. wuxuu kamid yahay daawooyinkii muddada dheer loo isticmaali jiray maxaa la dhahaa venous thromboembolism prophylaxis ha noqoto orthopedic ha noqoto general surgery-ga ama ha noqoto xataa bukaanada kaleeto ee cardiology ama cardiovascular medicine-ka. study-gan oo kamid ah study-yadii practice-ka DVT prophylaxis in orthopedic iyo in surgery wax badan kusoo kordhisay, kana mid ah study badan oo metric study laisku dhaho January 2023 sanadkaana la daabacay. waxaa la isku barbardhigayay daawada ugu badan ee la dhaho waa gold standard
of prophylactic therapy for venous thromboembolism in orthopedics oo low molecular weight heparin ah. daawadaas ayaa waxaa la dhahay bal daawo kale ma loo barbardhigi karaa. in loo barbardhiga aspirin objective study waxaa la fiirinaya sida ay low molecular weight heparin u yareynayso incidensiga DVT bukaanka haddii la siiyo aspirinka ma u yareyn kartaa. efficacy-ga effectivenimadaas waa sidee. remember DVT in ay dhacdo marka ay dhacdo waxa kadib la fiirinaya waxa ay tahay DE iyo death. marka 3 bilood gudaheed bukaankii aspirin la siiyey bukaankii DVT la siiyey u nugul inuu develop gareeyo maxaa la DVT iyo subsequent pulmonary embolism. waxaa la isku barbardhigay 6,000 oo bukaana 3 bilood kadibna waxaa la ogaaday in aysan aspirin ka yaraysan kana xumeen kana saameyn yareen low molecular weight heparin. conclusionka marka waxay tahay inkastoo aspirinka ay effective ku tahay sida low molecular weight heparin oo ay yaraysay riskigii DVT iyo riskigii death due to pulmonary embolism up to 90 days ama 3 bilood, haddana marka loo fiiriyo incidensiga oo DVT-ga iyo low molecular weight heparin iyo aspirin waxaa moodaa low molecular weight heparin groupkii la siiyey inuu incidensigooda u yaraa. marka conclusionka studyga waxay tahay su-aashaas fiirinaysay in aspirin oo ah daawo meel walba laga helayo orally bukaankii la sii karo outpatientiga lagu discharge gareyn karo meel walbana taala ha noqoto regionkeena ama meelaha kale ee developed countrieska aysan ka xumeen kana liidan effectivena ay u tahay marka loo barbardhigo low molecular weight heparin oo ay ka hortagtay death due to any cause up to 3 months maxaa la qalinka bukaanada major surgery orthopedic loo sameeyo. so marka aspirin controversies badanaa ka jiray laakiin studygan 2003 soo baxday waxay caddaysay in aspirin ay tahay daawo effective ah. daawada labaad oo kamid ah daawooyinka ugu caansan ee loo isticmaalo maxaa la DVT prophylaxis in orthopedic surgery ururada badanaa orthopediga sida ka Mareykanka American Academy of Orthopedic Surgery, American College of Just Physicians iyo NICE guidelines-ka iyo kuwa Scottishka xataa sign loo yaqaano dhammaantood waxay isku raacsan yihiin in low molecular weight heparin ay tahay daawooyinka ugu fiican ee DVT ama VTE prophylaxis loo isticmaalo bukaanada major orthopedic procedure-ada gaar ha noqdaan total hip, total knee ama bukaanada hip fracture-ada qabo. sidaa daraadeed marka low molecular weight heparin waxaa loo tixgeliyaa inay tahay gold standard of diagnosis. waxaan arki doonaa hadayt waxaan aspirin was not inferior to low molecular weight heparin, hadda laakiin ururadan waxay isku raacsan yihiin inkastoo aspirin saas ay tahay haddana still gold standard waxaa waa low molecular weight heparin. daawooyin kale ee aadka loo isticmaalo orthopedic waxaa kamid ah anfraction heparin. all guidelines-kii hadda aan sheegnay oo badankooda ay tixraac u tahay midda American College of Just Physicians waxay isku raacsan yihiin in anfraction heparinka inkastoo ay leedahay risk badan oo hemorrhagiga sida heparin induced thrombocytopenia ay weli tahay daawooyinka loo isticmaali karo effective-kana ah safe-na ah yareynayana incidensiga DVT-ga iyo VTE-ga. cilada ay leedahay anfraction heparinka waxay tahay due to inay monitoring u baahan tahay in bukaanka uu marka loo barbardhigo aspirinka low molecular weight heparinka iyo daawooyinka kaleeto ay tahay kamid tahay kuwa ugu badan ee lala xiriiriyo maxaa la dhahaa complicationada bleedingka. sidaa daraadeed marar badan ayada lama isticmaalo due to complicationadaas laga cabsanayo. waxay leedahay laakiin antidote oo protamine sulfate. daawooyin kaleeto ee oralka iyo DVT prophylaxiska loo isticmaalo waxaa kamid ah maxaa la daawooyinkan thrombinka inhibit ama factor 10A inhibit gareey refluxabana kamid ah daawooyinka yaalo maxaa la dhahaa wadankeena kamid tahay enoxaparin, refluxaban, dabigatran, heparinka labadeeda nooc iyo aspirin daawooyinka ugu badan ee hadda wadankan ku arkay kamid yihiin. guidelines-ka oo American College of Just Physicians iyo kuwa kale ee ayaga kasoo qaad sida AOS-ka, SIGN-ka, NICE-ka way dhahayaan dhammaantood refluxaban DVT prophylaxis in major orthopedic procedure-ada waa loo isticmaalaa laakiin ma cadda procedure-ada qaarkood ayaga badanaa waxay xooga saareen arthroplastiga. dabigatran oo kamid ah daawooyinkan oral anticoagulants-ka oo especially directly inhibit gareeyo thrombinka
ayagana waa loo isticmaalaa oo guidelines badankooda way isku raacsan yihiin in total hypototemy laakiin weli studieska ilaa hadda banaanka yaalla ma cadeynin ama study cad oo sheegaysa ma jirto indicationada iyo sida ay effective u tahay daawooyinka new oral anticoagulantska in DVT prophylaxis loo isticmaalo hip fracture surgery. Marka waxaan sheegnay daawooyin kala duwan oo ilaa 5 group oo aspirinta ay ugu horeyso warfarinta ku xigto daawooyinkan kaleeta hepariniska la isku dhaho kuwan factor 10A inhibitorska iyo daawooyinka new oral direct oral anticoagulantska loo yaqaano. Marka ay fiirisid orthopediga maxaa lahaa guidelineska iyo ururada kala duwan ha ahaadaan kuwa Europeanka ha ahaadaan kuwa Mareykanka ha ahaadaan kuwa just physicianska Europeanka iyo Americanka intaba waxaa la isku raacsan yahay any patient oo sidii risk assessment profile-ka aan ku aragnay riskigiisa ay tahay moderate to high inuu u baahan yahay prophylaxis. bukaanada kaleeta ee miligana ay at least u baahan yihiin mechanical prophylaxis. Marka prophylaxis no matter mechanical ha ahaato ama ha ahaato maxaa la dhahaa daawo oo pharmacological prophylaxis ha ahaato in loo baahan yahay si looga hortago DVT iyo subsequent pulmonary embolism waa la isku raacsan yahay. waxaa muhiima oo dhammaan ururadani guidelineskooda ay ayidayaan no matter pharmacological prophylaxis ha loo sameeyo mase aan loo sameynin muhiimadda ay leedahay early mobilization bukaanka in xilli hore sariirta laga dejiyo la socodsiiyo ayay tilmaamaysaa. sidoo kaleeto waxay ururadan isku raacsan yihiin in combination oo mechanical iyo pharmacological prophylaxis ay ka fiican tahay pharmacological prophylaxis kaliya bukaanada risk assessment profile-kooda uu 5 iyo ka badan uu yahay sida aan kusoo aragnay. dooda meelaha ay ka taagantaha waxa ay tahay bukaankee daawo la siinaa. tusaale bukaan ankle fracture ah iyo bukaan femoral fracture ah yaa risk badan, bukaan knee fracture ah iyo bukaan hip fracture yaa risk badan. in general study waxay sheegayaan in bukaanada ankle fracture-ka, leg fracture-ka, knee fracture-ka, femoral fracture, hip fracture, pelvic, spine, the higher you go from the foot to the proximal part oo dhanka head-ka ah ilaa iyo spine-ka ay ka gaaraysid riskiga inuu sii badanayo. tusaale ahaan bukaanada oo leg fracture-ada iyo maxaa la dhahaa below knee riskiga DVT-gooda waxaa la dhahaa waa up to 3%. halka bukaanada above knee riskigooda DVT iyo development iyo subsequent pulmonary embolism uu gaari karo up to 3 to 7 to 10%. marka meelaha ay dooda ka taagantaha waxay tahay yaa la siinaa. waxaa la isku raacsan yahay marka in any patient oo risk assessment profile-kiisii uu gaarayo moderate to high uu u baahan yahay prophylaxis inuu sameeyo. remember lower extremity surgery no matter ankle inuu ahaado, inuu leg ahaado, inuu knee ahaado, inuu femur ahaado, inuu pelvis ama acetabulum ama intertrochanteric iyo meelo lamida uu ahaado, dhammaantood lower extremity surgery way u baahan yihiin in la siiyo kan. Again, not only lower extremity surgery, age-ka bukaanka muhiima. waxaa laga yaabaa bukaan elderly ah, obese ah, proximal humor ka jaban oo upper extremity ah. then risk assessment markaad u sameysid age-ka keliya ilaa haduu koron yahay fracture-ka iyo mobilization-ka, obesity-ga maybe associated comorbidities uu leeyahay sida cardiovascular ama respiratory issues-ka inay riskigiisa again RAB score-kiisa uu 5 gaaro. marka who should receive waxay ku xiran tahay risk assessment profile. when should they receive goorma daawada la siinaa. dooda waxay ka taagan tahay meelaha kaleeto weli cilmi baarisada ay ka socdaan. waxaa kamid a bukaankan haddii loo sameynayo qaliin uuna u baahan yahay DVT prophylaxis pharmacological goorma daawada la siinaa. marka European guidelineska iyo North American guidelineska waxyaabaha ay almost ay isku raacsan yihiin waxaa kamid a bukaankan ama 8 saac ka hor qaliinka u bilaabo prophylaxiska ama 12 saac ka hor u bilaabo prophylaxiska ama qaliinka kadib u bilaabo maxaa la dhahaa 6 saac ama 8 saac kadib prophylaxis u bilaabo. again waxay ku xiran tahay riskiga bukaanka duu high risk yahay waxaa la prefer garayaa daawooyinka ay isticmaalaysidna aysan badinaynin halista bleeding-ka iyo post operative oozing-kii surgical site-ka pre-op 12 hours ee badanaa guidelines ka dhahayaan.
post op bukaanka riskigiisa haddii aysan badnayna waxaa la recommend garayaa in post op 12 hours 8 hours intuu dhexayso loo bilaabo. su-aasha kale waxay tahay marka what form of drug daawadee loo bilaabo. most of the time daawooyinka la siiyo bukaanadan haddiiba high risk patients ay yihiin oo rabiskorkooda 5 iyo wax lamida uu yahay, daawada ugu badan ee la isticmaalo waa low molecular weight heparin. low molecular weight heparin waxay ku xiran tahay again bukaankii contraindication amuu leeyahay maya. daawada ugu badan ee loo isticmaalo orthopedic sida aan kusoo aragnay gold standard of therapy inay tahay ayada waay. again bukaankaas intuu isbitaalka joogo 3 beri 4 beri 5 beri low molecular weight heparin uu qaadan doonaa, then marka uu baxo waxaa lagu bedelaa either daawooyin kaleeto oral ah ama aspirin. durationka daawadan meeqa beriga bukaanka qaadana. most of the time bukaanada arthroplastiga waxaa la recommend garayaa ugu yaraan 14 beri ama bukaanada qaarkoodna waxaa la recommend garayaa ilaa 35 beri. marka waxay ku xiran tahay riskiga bukaanka. weli ma jiro clear cut off point oo la dhahayo bukaankan 14 oo qaadana bukaankaana 14 oo qaadana. marka patient specific factorska weli aanan caddaynay kamid tahay, laakiin most of the guidelines waxay dhahayaan 14 days minimum to 35 days maximum ayaa la recommend garayaa. hadduu laakiin bukaankan uu yahay bukaan current DVT looga cabsanayo high risk waxaa laga yaabaa up to 6 weeks in la wado daawada. marka meelaha controversy uu ka jiro ama doodaha ka jira ay kamid tahay meelahaas. aniga ka sayid ahaan iyo staff gacanta jiro oo aan ka shaqeeyo oo aan ka sameeyo maxaan sameeyaa. most of the time bukaanada markay noo imaadaan waxaan leenahay greenfield form maxaa lahaa risk assessment toolkii uu lahaa noo yaalo. naasiga marka bukaanka noocaas ee jaban fimarka ka jabnaado oo intermedullary needing ha loo qorsheeyo ama ka jabnaado forearmka ama meel kale 40 sano ha ka yaraado ama 60 sano ha ka weynaado, bukaankaas waxay u sameynayaan naasiga risk assessment tool. risk assessment ama risk stratification markay u sameeyaan bukaankii wuxuu noqonaa early bukaan low riskiya, moderate riskiya, high riskiya ama bukaan highest riskiya. nuucuu raba ha ahaado bukaankaas markasta waxaan ku dadaalnaa in bukaankan qaliinka kadib early mobilization loo sameeyo. so low risk ahaw ama high risk ahaw, if the patient can be mobilized immediately after the surgery waxaan ku dadaalnaa early mobilization, early walking, sariirta inuu dhaqso kasoo dego maxaa la dhahaa si at least maxaa la dhahaa u caawiso. then bukaanada moderate to high riskiya waxaan isugu darnaa annaga ma isticmaalno intermittent pneumatic compression device ama venous pumps waxyaaba lamida. daawada ugu horeyso aan isticmaalo bukaankaana moderate to high risk ugu dhexeeya, especially moderate risk haduu yahay maxaa la dhahaa aspirin. bukaankan laakiin haddii uu yahay bukaan high riskiya, high risk waxaan ka wadaa bukaanadii either galay maxaa la dhahaa hip fracture, bukaanada intertrochanteriga, bukaanada bilateral femur, bukaanada polytraumada, bukaanada procedure-kooda u dheeraa, bukaanada maxaa la dhahaa intaysan istaalka imaanin hore immobilization muddo usoo ahaa. bukaanadaas waxaan ku bilaabnaa low molecular weight heparin kadibna after discharge aspirin ala siiya. durationka badanaa aan sameeyo waxay tahay most of the time bukaanada markay baxaan aspirin 75 milligram ama 81 milligram ayaa waxay qaataan muddo 30 maalin ah. go'aanadaas iyo practice-kaas aan sameeyana waxaan ku saleeyay study hadda aan idiin sheegayay New England Journal of Medicine lagu daabacay January 2023, taas oo gabagabadii conclusion-keedu uu ahaa in aspirin uusan ka xumeyn in terms of efficacy-ga daawada ugu caansan ee low molecular weight heparin la dhaxay. gabagabadii waxaan kusoo khatimaa venous thromboembolism ha ahaato DVT ama consequence-geeda oo ah pulmonary embolism waa preventable cause oo sababto ama loo aaneeyo inay kamid tahay ama la dhaho waa shayga saddexaad ugu badan ee isbitaalada bukaanada inpatientiga ee u dhintaan. bukaanadan haddii risk assessment loo sameeyo, risk assessment-ga markii loo sameeyna loo manage gareeyo according to their risk stratification, dhimashadaas waa laga hortegi karaa. bukaankiina maxaa la dhahaa quality of life-kiisii iyo communication-nadii wajihi lahaa early ayaa la detect garay karaa ama la xallin karaa. remember mechanical, pharmacological iyo interventional prophylaxis ka jiro midka ugu simbalsan every patient inuu ugu baahan yahay applicable-na ku ah waa early mobilization. sidaa daraadeed no matter bukaankan nooca uu yahay waa muhiim in bukaanada lagu dhiirigeliyo
inay sariirta kasoo degaan, early walking sameeyaan, dhaqdhaqaaqaan. Taasna wax badan ayay saacidaysaa, sidii sariida ay sheegeen 40 to 60% ayay riskiga iyo incidensiga DVT-ga yareynaysaa. ugu dambeyn daawooyin badan ayaa jira, daawooyinkaasna tee la isticmaalaa, meelaha dooda ay ka taagan tahay ayay kamid tahay. laakiin ogaaw aspirin raqiis ah, Soomaaliya taalo, meel walba laga helayo, bukaanka oral uu qaadan karo. Complicationo badan in terms of bleeding ay kamid tahay, iyo maxaa la dhahaa heparin induced thrombocytopenia, complicationadii hemorrhagiga ee heparinada iyo daawooyin kaleeto ee aanan lahayn antibiyootyada looga cabsanayo ma lahan. sidaa daraadeed waa daawo aada loo isticmaali karo. aad iyo aad ayaa umahadsantihiin. asalaamu calaykum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور سيد هذا وما سنتهي waxaan rabaa inaan presentationka ugu dambeeyo aan u gudubno. Dr. Muna Xuseen Xasan waa obstetric and gynecologist ka howlgasha isbitaalka Royal Muqdisho, sidoo kale waa bare wax ka barta jaamacadda Muqdisho. ciwaankeeda wuxuu ku saabsan yahay DVT prophylaxis in obstetric and gynecology. Dr. Muna, it's an honor to have you in Somali Orthopedic Association kan presentation kooda ay arrange gareeyeen. waa bilaabo kartaa oo maasanta. Assalamu alaikum. Magacayga waa Dr. Muna Xuseen Xasan, obstetrician of gynecology. waxaan jaamacadda kusoo dhigtay dalka Suudaan. takhasuskan waxaan ka diyaariyay dalka Suudaan, MD, Medical Specialization Board. aad ugu faraxsanahay this meeting inaan soo qayb galo. Okay, according to the time qoyar horaa ka bilaabi doona presentation. Okay, waxaan ka hadli doonaa brief about thromboprophylactic in obstetric aspect. Incidence of venous thromboembolism, which is either a pulmonary embolism and deep vein thrombosis in pregnancy and puerperium, were 1 every 1,000. Incidence here were 1 every 1,000 patient. Pregnancy per se, waxa waa hypercoagulable state. waayo waxaa dhacayo fibrinogen production ku badanaya, fibrinolysis-ka iyo prothrombin 3 iyo protein S na uu yaraanaya. That's why noqonaysa hypercoagulable state. Mostly DVT in pregnancy wuxuu dhacaa antenatal period, wuxuu la siyaadaya with gestational age, peak wuxuu gaaraya during puerperium-ka. In non-pregnant DVT-ga waxa waa calf vein ku dhacaa. في pregnancy wuxuu ku dhacaa iliofemoral vein. waxaa koosgareynaya taasna in ay jirto compression lagu sameynayo right iliac artery, compression lagu sameynayo left iliac vein between right iliac artery iyo 5th lumbar vertebra. kaasaa keenaysa inay venous status في left side of the body ay badato, which lead to DVT. Okay, waxaa sameynaa wax loo yaqaano antenatal assessment. Every woman in pre-pregnancy ama early pregnancy waxaa u sameynaa wax loo yaqaano documented assessment risk factor for VTE. waxaana ku celinaa assessmentigan in 3 cases. haddii patientiga admitted loo sameeyo, or intrapartum, or immediately postpartum. risk assessmentiga aan sameynen waa maxay? risk assessmentiga aan sameynen waxaan fiirinaynaa risk factorka uu bukaankan leeyahay. مثلا risk factor keena waxaa u qaybinaynaa low risk, high risk, intermediate risk. low risk waxa waaye haddii patientiga ay leedahay obesity, BMI more than 30, age more than 35, parity more than 3, ama multiple pregnancy, smoker, immobility, low risk thrombophilia, family history of estrogen performed or unperformed VTE. waxaa kala jira waxyaabo loo yaqaan transient risk factor, which is bukaankan oo kaleentood dehydration aan ku dhaci karo, hyperemesis, current systemic infection, ama long distance travel oo kale. In this case waxaa loo yaqaanaa intaan oo dhan low risk. low risk markay bukaanka leedahay waxaa u xisaabinaynaa according to the how many risk factor leedahay. Masalan haddii leedahay 4 risk factor waxaan siinaa thromboprophylax from first trimester. haddii leedahay 3 risk factor waxaa ugu bilaabeynaa from 28 week. haddii leedahay 2 risk factor, only mobilization and avoid dehydration counseling aan u sameynaynaa. intermediate risk factor waxaa loo qeybiyaa surgery iyo surgical iyo medical.
maxaa lagu wadaa surgery haddii bukaanka any surgical procedure ay marto زي الابنزكتومي أما any VTE related to major surgery يعني surgical VTE previous surgical VTE هيستا or surgical procedure مرتي or medical comorbidity زي cancer SLE irritable bowel syndrome inflammatory bowel arthropathy nephrotic iyo waxay leedahay kale زي UTI sickle cell disease ama IV drug user oo kale in intermediate ka waxaa noo sii dheer bukaanka haddii leedahay ovarian hyperstimulation syndrome في الفيرست trimester ama loo sameeyo hospital admission in this case waxaa u naqaanaa intermediate risk waxaan siinaynaa antenatal prophylactic with lower molecular heparin high risk waxaa la dhahaa any previous VTE non surgical يعني qofkan waxaa ku dhaco kale VTE waa estrogen provoke calaaqad ma lahan any surgery oo loo sameeyo this case waxaa la dhahaa qofkan high risk u qaadanaa antenatal prophylactic with low molecular weight heparin waxaana u refer garanaysaa thrombosis expert hadduu bukaanka leeyahay 4 risk factor waxaa uga bilaabeynaa prophylactic inaa u bilaabno from 28 throughout the pregnancy ilaa 6 week postnatal hadduu leeyahay 3 risk factor waxaa uga bilaabnaa from 28 week hadduu leeyahay 2 risk factor only 10 days postnatal always waxaa u sameynaynaa counsel about hydration and mobilization okay مثلا bukaanka wuxuu leeyahay ovarian hyperstimulation syndrome first trimester uga bilaabaysaa hadduu patientiga uu leeyahay hyperemesis gravidarum consider in aad siisid low molecular weight heparin prophylactic ayadoo until hyperemesis resolve waxaa kala sameynaa during laborka markaa sameynayno waxaan u kala qaybinaynaa bukaanka normal vaginal delivery miya mise cesarean section way any patient qaadan jiray antenatal low molecular weight heparin waa inuu joojiyaa markii labor bilaabmato or uu u imaado vaginal bleeding bukaanka markuu labor pain ku imaado ama any vaginal bleeding awal step uu sameynaya wuu joojinayaa dooska uu qaadan lahaa at that time markuu noo imaado we avoid any regional anesthesia at least 12 hour after last prophylactic dose oo kale ama 24 hour after therapeutic dose مثلا bukaanka wuxuu qaadanayay therapeutic dose 24 hour kaas ma siinayno regional anesthesia ama 12 hour from last prophylactic dose haddii bukaanka soo gashay spontaneous labor within 24 hour ayadoo qaadatay low molecular weight heparin waxaa isticmaalnaa wax loo yaqaano opioid based IV patient control analgesia okay according to cesarean section bukaanka haddii maraysa elective cesarean section waxaa u sheegaynaa inaysan qaadan dooskeeda low molecular weight heparin day before the operation and the morning of the operation dooskeeda oo meet ku sameynaysaa way daynaysaa waxay ku bedelinaysaa inay qaadato at the end of the day and first dose of thromboprophylactic waxaan siin karnaa as soon as possible bacda delivery haddaysan haysanin postpartum hemorrhage ama regional anesthesia aana loo sameynin bukaana waxaa jiro high risk of hemorrhage kaasoo iskugu jira haddii bukaankaan haysatay antepartum hemorrhage ama postpartum hemorrhage ama coagulopathy ama ay leedahay huge wound hematoma or suspect inay leedahay intraabdominal hemorrhage unfractionated ugu bedelnaa assessmentiga kalena waxaan u sameynaa bukaanka fil postpartum in postpartum waa zay antepartum risk factorka assessmentii ku sameynayno except waxay dheer tahay في low risk patientka waxaa kusoo zaa'idaysa wax loo yaqaano pregnancy outcome yani waxaa fiirinaynaa bukaankan postnatalka elective cesarean section may ku dhashay preterm labor may ahayd IUFT may haysatay instrumental delivery maa lagu dhalsiiyey especially rotational forceps oo kale prolonged labor more than 24 hours BPH maa ku dhacay ee u baahan in la siiyo more than 1 liter transfusion in this patient hadda aan soo mention gareynay waxaa loo yaqaanaa low risk low risk patient marka waxaa fiirinaynaa according to the risk factor ku haysto hadduu leeyahay 3 risk factor waxaa siinaynaa low hadduu leeyahay more than 3 risk factor
low molecular weight heparin waxaa siinayna 6 week hadduu leeyahay 2 risk factor only 10 days hadduu ka yar yahana 2 risk factor we counsel about mobilization and avoid dehydration intermediate risk waxaa ugu muhiimsan same as antepartum laakiin waxaa noo dheer cesarean sectionka masalan bukaankan wuxuu ku dhalay emergency cesarean section ama BMI-giisa more than 40 waaye ama readmission loo sameeyay or prolonged admission more than 3 days will be vivarium markay dhashay kadib 3 days ka badan ay joogtay ama readmission loo sameeyay or any surgical procedure loo sameeyay markay dhashay kadib مثلا waxay sameysay sterilization sameysoo kale بالنسبة لنا waxaa waaye intermediate risk haddii bukaanka tahay 10 days siinayna haddii 2 tahay haddii more than 3 tahana waxaa siinayna extension ku sameynayna hadii 6 week high riskiga waxaa waaye any patient ee leh venous thromboembolism previous VTE hadduu leeyahay ama antenatal low molecular weight hadduu qaadanayo ama high risk of thrombophilia or low risk of thrombophilia laakiin family history of VTE uu leeyahay bukaankan oo kale directly waxaa siinayna 6 week postpartum waxaana u xawilaynaa expert waxaa kale jiro waxa loo yaqaano risk scoring system waxaa u qaybinaa yaa score 4 yaa score 3 yaa score 2 yaa score 1 score 4 only 2 categories are leenahay haddii bukaanka leedahay previous VTE lehinan surgical VTE score 4 waa haddii leedahay kaleentood ovarian hyperstimulation syndrome score 4 waxaa waaye antenatal iyo postnatal 6 week oo qaadaysa score 3 ga waxaa waaye haddii leedahay provoke VTE masalan VTE uu imaatay during major surgery ama leedahay any surgical procedure loo sameeyo postpartum say appendectomy ama postpartum sterilization or bukaankan waxay lahayd hyperemesis graft ama medical comorbidity-ga aan hore usoo sheegno kale leedahay this category waxay qaadanayaan score 3 which is 28 week ee uga bilaabanaysaa lixad 6 week cesarean section in labor iyo BMI more than 40 waa score 2 wixii intaas ka soo haray waxaa loo yaqaanaa score 1 marka waxaa siinayno malahan unless haddii risk factor kale leedahay lehi BMI actor min 30 age actor min 35 barid actor min 3 multiple pregnancy immobility nasal comorbidities ay مثلا waxay haystaa oo kale pregnancy outcome keeda waa elective cesarean section ama waa preterm birth IUFD instrumental delivery intaas oo dhan waxaa loo yaqaanaa score 1 slide euro meeshaan ku jirinaa jiro مثلا markaas inayna loo dose heparin waxaa fiirinaynaa creatinine clearance hadduu ka yar yahay 30 waxaa siinaynaa enoxaparin and deltaprin hadduu ka yar yahay 20 waxaa siinaynaa tensaprin initial dose of low molecular weight heparin waxaan ku xisaabinaynaa according to the weight fil booking early pregnancy ama pre-pregnancy weight anukoo u qaybinayno bukaanka according to the weight hadduu ka yar yahay 50 or between 50 and 69 or 70 to 89 or 10 or 100 and above waxaan u fiirinaynaa pre-pregnancy weight aan ku dhufanaynaa dooska على حسب وحي صوب حالة قيمة قولي تايم كوير انت سقصو وضعها aad u mahadsan tahay Toreso programkeena presentationkii ugu dambeeyay ahay wixii su'aale iyo comments qaba gacantay taagi karaan su'aalaha iyo comments ka gudbinaynaa dhakhaatiirta kala duwan Thank you all presenters. دور سؤال بحثه إن الودية دكتور كمال دكتور كمال الدين طاهر عثمان بسؤال ودية دكتور سيد the role of vena cava filter on DVT prophylaxis. Thank you. So أساسا دكتور سيد iyo بحثه دكتور عوالي أي كان ليه دكتور عبد الرزاق هذا هم أصلا تاعي إنكستو
interventional radiologistayaasha iyo interventional cardiologistayaasha procedure ay sameeyaan ay yihiin ayna fiicneed inay noo wada sharaxaan, laakiin in general waa one of the ways oo prophylaxis loogu sameeyo DVT-ga. waxa ugu muhiimsan 2 ilaa 3 indication, 2 ilaa 3 jeeraa la sameeyaa. waxaa loo sameeyaa bukaanada contraindication ku ah anticoagulation-ka kow, ama bukaana anticoagulation intii loo sameeyey complicationno ku develop gareeyey. bukaanada oo noocaas oo kale ah oo contraindication ama sida leh maxaa la dhahaa intercranial bleeding ama active bleeding ama thrombocytopenia plateletkoodii tusaale ahaan oo kale 50,000 20,000 aad ugu hooseeyo, riski badan ugu jira bleeding inay develop gareeyaan ayaa loo sameeyaa. marka complicationadaas ama contraindicationadaas maadaama ay daraadood aan la samayn karin pharmacological therapy, ayaa teamka interventional radiology iyo cardiology waxa bukaanadan ay u sameeyaan catheter ama filter ayaa waxaa la gelinayaa inferior vena cava through femoral vein meelahaas laga soo galaa. then markii la geliyo filterkaas ujeedkiisa waxay tahay maadaama most of the maxaa la dhahaa thrombus ay veniska lower limbiga ay ka imaanayaan, especially kuwii legga ama kuwii iliac femoralka ay ka imaanayaan. ujeedku wuxuu yahay filterkaas inuu dislodge gareeyo ama uu qabto oo aysan ka gudbin thrombuskii maxaa la dhahaa hoos ka timid. remember DVT-ga dhan waxa looga cabsanaya waxay ahayd inay sababi karto fatal pulmonary embolism. haddii marka vena cavihii thrombuskii lagu qabto waxaa marka yaraanayo maxaa la developmentii pulmonary embolism. marka rol ma ku leedahay? haa. procedure common oo la isticmaala miyaa marka loo fiiriyo pharmacological iyo mechanical prophylaxiska kaleeto? maya. tusaale ahaan waxaa la dhahaa bukaanada markii la fiiriyo overall waxaa laga yaabaa in less than 1% ama less than haddii aan badino 5% ay yihiin bukaanada vena caval filters loo sameeyo bukaanada orthopediga. mechanical prophylaxis iyo waxyaabo kaleeto pharmacological prophylaxis ayaa first line ah, laakiin kuwii aanan loo samayn karin pharmacological iyo contraindicationadii hadda aan sheegno oo kale leh ayaa badanaa loo sameeyaa procedurekan. rolna uu ku leeyahay, inkastoo filterka nafsadiisa gadaal dambe retrieval looga sameeyo bukaanada laga bixiyo haddii meesha uu ku jirana communication iyo dhibaatooyin asiga xataa inay ka imaadaan suuragal ay tahay. dhakhaatiirta kale haddii wax ku darayaan. Thank you so much, Dr. Sayed. su-aal kale oo Dr. Cawaale hadduu ku jiro, waxaan rajeynaa xogaan su-aalaha in lasoo koobo si waqtiga. surgical positionska ma contribute garayaan to development of deep venous thrombosis? Actually, intaan hadda yara ogsoona waxaan u fahmay surgical position qaabka bukaanka loo dhigayo, saasaan u fahmay doctor. saasaan u fahmay. marka mar walba annaga waxaan dhahnaa bukaanadan inta badan qalliinkii loo sameynayo weliba kuwan oo isbitaalka iyo maxaa la yiraahdaa ama OTD loo qaadayo nooca loo sameynayo wax hadda significance aan arkay oo aan hadda sheegi kara ma jirto. laakiin waxaa mar walba muhiima in bukaanadan sida hadda laga sheekeynayo prophylaxiskana la isticmaalo, and at the same time maxaa la yiraahdaa laga fakaro bukaanka markii uu kasoo baxanayo sidii looga hortagi lahaa DVT, maadaama uu bukaanka in general venothromboembolismka uu dhibaato badan bukaanka u geysan karo oo weliba hadda dhimashadii hadda laga sheekeynayo ay maxaa la yiraahdaa ay kamid tahay. marka wax hadda saxan aan hayo ma jirto. haddii saaxiibada ay ahaayaan waa ku dari karaan. Thank you, Professor Cawaale. su-aalaha intaas waayaan u malaynaya. waxaan usoo celinayaa Dr. Xasan Fiidow. aad u mahadsantahay doctore. waxaan rabaa inuu mahad celiyo dhammaan dhakhaatiirta presentations noo soo jeedisay. ugu horeeya Dr. Sayid Cumar chairman keena iyo Dr. Isaaq Gaab
دكتور يسمونا دكتور عوالة dhammaantiin aad u mahadsantihiin waqtiga iyo presentation quruxda badan aad noo soo jeediseen waxaan rabaa sidoo kalena u mahad celiyo Somali Orthopedic Association oo soo qaban qaabiyay barnaamijkan waxaan rajeynaa maalin kale oo aan cilmi kala faa'iidi doonno inaan wada kulanno programkeena intuu ku xiran yahay cawada presentationskii oo dhammaystiran iyo su'aalaha qaar iyo jawaabahooda dhammaan waxaa lasoo dhigi doonaa barteena Telegramka aad u mahadsantihiin dhammaantiina asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu